السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا برنامج آد قيمها بدن وأن ugu talagalnay u ducee dalkaada iyo dadkaaga iyo madaxdaada oo aan ugu talagalnay inaan ugu duceyno dowladeena shacabkeena iyo dalkeena watuuna helay dhibaato iyo burbur aad u tiro badan ilaa iyo 1990 runtii Soomaaliya xasilooni badan loo waayay ilaa iyo maantadana aan ku suganahay noloshii hore nolol ka fiican boqolkiiba boqol alxamdulillah ilaahay raxmadiisa dhibkii la soo maraba dheef baa ka dambayso waxaan halkan ka rabaa inaan shacabka Soomaali ka codsado inay u duceeyaan dowladooda iyo dalkooda iyo dadkooda haddii aan wada duceysanin waxna nooma hagaago wadankii wuu fiican yahay wuu ka fiican yahay sidoo hore maadaama in yar dhacday in wadankii iska jirto yani dhaliil badan laakiin alxamdulillah sidoo hore wuu dhaamaa maantana waa tii doorashada ay dib u dhacday ee ay kaga dhacday la yiri 2017ka marka annaga shacabo waxaan qaban karnaa duco waxaan qaban karnaa inaan u duceyno dowladeena inaan u duceyno dalkeena inaan u duceyno dadkeena waayo haddii aan annagii haleel iyo carcar aan la galno waxba ma hagaagayaan wadanka waa wadankaaga markastaaba aniga waan ku jir laftigay dadka dhaliisha ka tirsanaya laakiin waxaan ogaaday markii aan qofka dhaliilka laga badiyo qofka maamulka hayo ama madaxda iyaga waxay doonaan sameeyay karbigood annaga waxaan u soconaa daacad iyo daldhis iyo ummadaas oo maanta ku noolaato sharaf iyo xasilooni iyo nolol aad u wanaagsan aan lahayn complain aan lahayn musuqmaasuq aan lahayn corruption يعني ummadda Soomaali waxaan annaga gaar ahaan ku nooleen nolol iska qurux badan nolol nin kasto dantu uu qabsanayo dantiisaba hadduu ninka askari yahay hadduu business yahay hadduu nolol maalmeedkiisa hadduu macaan yahay nin walba happy uu ku noolaa يعني cid is arkaysa ma jirin laakiin markuu burburki dhacay ee dhibaatadii dhacday يعني waa garanaysaa markuu burbur dhaco uu la qaxayaa lacagtii baa dhamaanayso bangiyada mashiinadii ma laha businessadii badana ma laha beerahii tacab badan ma jiro oo يعني beerahii wixii ugu bacriminayo kala way go'ayaan يعني wadankii waxa dhacay wax la yiraahdo complicate wuu isku qasmayaa haddii marqax yimaado warka dhan isku soo duuduub maanta waa mid wixii dhamaan waan ka baxnay laakiin in yar baa wadankii harsan in dalkii Soomaaliya ay alxamdulillah horta boqolkiiba boqol had way dhaantaa in ay noqdaan dad wadanku ku xasilan dad noqda inay wadankii ka helaan shaqooyin dowladii waxa ma haysato shacabkii waxa ma haystaan marka inaan annaga awr oon inaan wadankii qof walba muwaadin ah uu isku soo taago inuu waxtar la yimaado qof walba haddii xataa maanta laga bilaabo xaafadaha dhexdooda yani berrito waxay noqon kartaa in wanaagii badnaa markay arkaan madaxdii ama shacabkii kale ama dadkii kale inay dhahaan dadkan waa ummad raba inay wadankooda wax u taraan waa ummad raba inay wax qabsadaan waa ummad raba in la caawiyo meel isu soo taagaan laakiin today wax badan qof walba uu arkaya qofka ilaahay indha siiyay in wadankii lagu wada fooraro Soomaaliya maanta yani qof walba uu raba intiisa inuu ka qaato ama intiisa inuu ka dago waan fahmi karnaa burbur baa dhacay dhibaato dhacday laakiin maxaa naga rabaa as Soomaali as muwaadin Soomaali ah qof walba ah xaq buu ku leeyahay waa mas'uul saaran inuu wadankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu noqdo qof wax u qabto uu meel uu la soo istaago wax qabadkaas adigu aan cidna aan ka heebeysanaynin waan fahmi karaa wadankii ciidamada shisheeye jooga waan fahmi karaa dhibaatooyin badan waan fahmi karaa in dad badan ayaan dhawid waxa arkay islaan la marsiiyay gaari la yiri dadka wadanka jooga la keenay baa gaari marsiiyay baa newska ka aqri ani ma joogin maana taagnayn ka badana dhacday aanan ogeyn in hadda dhibkii uu jiraa annagii wadankii ma joogno maxaa laga rabaa inay dadka يعني wadanka gudihiisa joogaan waan fahmi karaa duruufaha hayso wuxuu ma awoodo qofkii uu dhibaataysan yahay in laga arko inay wadanka
waxqabad ayaga laftigood ay muujiyeen siday isaga ilaaliyeen cadaawada ku xadgudbaayo dhibaatada loo geysanayo isla markiiba qofka markuu dambiga kalo sawiraa qofkii sameeyey qofka xaafadda ka mas-uulka ah uu u qaadaa uu dhigaa barta looga taliyo xaafadda ama barta looga taliyo asa dowlad ahaan